hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo ay wehelinayaan madaxa ololaha ee xisbigaasi Xamse Cabdiraxmaan Khayre ayaa munaasabad harimo sharafeed loogu sameeyay magaalada Arabsiyo oo ka tirsan gobolka Cagaaran ee Gabiley. Harimo sharafeedkaasi kadib oo uu warbaahinta la hadlay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani iyo madaxa ololaha ee xisbigaasi ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa halkan wax arrin weyn uma niman qado ay noo sameeyeen niman asxaabnahay oo beeraleyda ah halkan qado noogu sameeyay haday Dr. Axmed Shukri haday odaga yihiin Maxamed Ducaale iyo haday odayaashiina waxa weeye agabsaha way ku mahadsan yihiin qado sharafta noo sameeyay halkan noogu sameeyeen qadadan baan la wadaagay asxaabta iyo xaafadda way ku mahadsan yihiin odayaashii runtii qadada noo sameeyay iyo dhalinyaradii nagu soo dhaweysayba aad bay ugu mahadsan yihiin qada saaxiibtinimo baan lagu sameeyay ma ahayn shaqo siyaasadeed oo kale aad bay ugu mahadsan yihiin deegaankan waa deegaan runtii waxa weeye horumarineed oo resource badan leh waa deegaankii khudradda iyo waxa weeye beeraha haday tahay gobolka Gabileyna waxa weeye oo xaruntiina waxaan ku dhignay xarunteedii campaign-ka insha Allah taala marka ay inoo dhamaato hawsha doorashada inoo qabsoontay in guusha hananana wadaarkii waxa weeye kala baydna waa sameyn doonaa insha Allah taala waa ku darsanaysan waa ogaanaysan saddex tooxba magaalada horta Arabsiyan idii sheey Arabsiida waa wadane Arabsi waa wadane marka waa halka uu Mareykanka Camp David ugu jirto ee madaxweynuhu ku nasto Washington markuu shaqada ka baxay ay Arabsi Camp David wadani weey madaxweynaha soo socda insha Allah ma ahaan inaan nimaadno wax la yaabo ma hoorno imaanayna waan ku soo noqonaynaa beeraleyda casuumti mar walba casuumeysa wala wallahi halkan aan ku qabsan intaasaan wax kale oo meesha jira ma jiraan website-yadan ku arkay qolo cadhoonaysa xaakaas oo iyaga waxaan oranahay war shaqadiina qolada reer kulmiye waliba warbaahinta kulmiye ahayd shaqadiina qabso xisbiga xisbi ballaaran imika waxa bari jooga agaasimo waaxid iyo agaasimayaal wasiiro oo sharciga runtii ogolayn hay'adii dawladdu way xidhan yihiin xafiisyada dawladdu ma shaqaynayaan laakiin xisbigana waa xisbi ballaaran oo hawlo dhowr isbarbar socda kulay ana haray looma hadlo hadalka badidiisii waxa ii hogaamiyaha iyo Xamse maadaama aan anigu ka soo jeedo deegaanka beeraleyda iyo biyaleyda oo Ilaahay magaranaysa uu naga dhaliyay waxaanu maanta halkan nagu marti qaaday deegaanka Arabsiyo gaar ahaan agamsaha ay ka tirsan gobolka Gabiley waanu mahadnaqaynaa waanu ku bogaadinaynaa geesinimada ay sameeyeen iyo qabyaaladda ay diideen iyo naxliga iyo qaraabakiilka ay ka soo carareen waxaan u qabaa in lagu daydo deegaanka reer Arabsiyood waxaan halkan idin sheegayaa aniga gudoomiyaha degmada Arabsiya waxaan maanta ku soo dhaweynaynaa hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Xaaji Cali Xasan iyo Xamse oo gudoomiyaha ololaha iyo wafuud la socotayba aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa baanahay mar walna waan idin soo dhaweynaynaa waan idin casuumeynaa deegaankiini waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba muuqaal maqalka caalamiga kalsanti